ودكين الله عرفه وشدنا معنا شعبي واسده وي يوحنا يجي لبي iyo 30 baa maxkamad saaran oo la dili intaan caalamka la taagin waakii hor fadhiya wasoomaadana oo dhan waayahay horta maxkamadda ninkii saariyay dadka liinaya waaka bulaale laba goor buu ku dilay ninka xaabada lagu dilay aflow isaga soo diray shanbu soo diray xaaba ku soo dilay ninka la yiraahdo in xiriyo hal ku jira wuxuu ku dilay wiil yar oo reerkoodii ardaaga saa u hurdo iyo aayar dhafarka dhufta waxaan leeyahay madaxweyne maxkamadda ku saariyay dadka ciyaarta ku leenayay weeye ilaahay baa gacanta maanta iyo ciidanka iyo shacabka yagan gacanta inta isqabsadeen cadowga ku jabiyay baan ku mahadinaynaa horta haddii cadaalad noqotay haddii horumar noqoto haddii wax kasta noqoto qaabka dawladnimada seeska un baa kaa horreeyey mooyi dawladnimada adaa adeer u dhaqaajiyo adaa dawladnimada abuuray ay xeel raabiga la yidhaah waxaana ka socdaa magaalada dhuxun baan ka socdaa 7 nin iyo cibaado kood ninkii dilay weeye 7 nin iyo cibaado kood meelay reerkeeda yaaliin war uma hayna maanta meel alla meelay jireen moogin ninkii nagaabiyey buu ahaa ninkii qaarka naga reebay buu ahaa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم horta waxa ma hadda iskale oo loo aynu u mahadinaynaa ilaahay weyn ee waaxida aniga oo ku hadlaya gobolka nabgeed anoo ku hadlaya ilaahay weyn ee waaxidan horta aan u mahadinaynaa iyo dawladdeena ayaan u mahadinaynaa waxa weeye horta in la hor keeno waa lagu mahadsan yahay waanu ku faraxsanahay in la hor keeno maanta in la hor keeno nimanka waanu ku faraxsanahay hala fadhiisto dadweynuhu ha fadhiisto weli waxaan sii xasuustaa oo aynan niyadayda ka bixin isla carruur yar oo rajaa cabdiqeex nuur faarax carruur rajaa buu lahaa hooyadood way dhimatay hooyadii oo hataalan oo indhala oo eega joogta ayaa haysay kolkay dileen jaqafti markay saacadda ka furanayeen bay tiri war hooyo cabdiqeex war carruurta xabadda ka soo qaba bay tiri ka weli igu dheeradan waa kaa maaragta go'aan aynu siino waxa weeye waxay dileen kii adoon oo walaalkay dhalay oo korsaday oo baabuurkii haydhtoomka ahaayee forjee xoojiisa meelada loo dhigay ee la qarxiyey agoon walaalka dhalay buu karsaday buu ahaa markii wax kale la daayo ummadda ay laayeen oo dhan waa ummad kilalka shanaad u dhalatay culumo leh caamo leh magayde leh carruur leh nin leh naag leh habar leh waayeel leh naf kasta leh dadkan la hor fadhiyana waa dadkii dhibaatadaa geystay anugu waxaan waa nimankaas waxaa weeye waajibkay leeyihin hala mariyo dadkay ay arkaysaan inaad dadka hor keentaanna ma ahaynba dadkii hadda galabta waxaa weeye dhibaatada ugu daran inaan ka dhambaaran karin waxaa weeye wax allaala wax dad hadda
تلب أفرت كله وداسن أوضنه دلقات الدراجة إن قاركود إنت ولا يابا كيف يهدى من كل شيء كل هذا الكوحي قال لهم يا مرنا حلم بيقطع هاي مرة فرحات بيقطع هاي مرول يا مروجة يقطع هاي مركاي مروجة يقول يقطع هاي حسوق إبكا بدنا أي وجستين تيجان كجارهان قول كتشررات يرجع كبحي يهوي كبحي يجود كبحي يهانتي كبحي رجع جستي إن هورستاجو أو هالكن كاركو نحن لنا فرحات أي يقطع هاي نحن توا هاي مساكين دروال حرفة عافيمان وحن معنا ما يبعث فوق شيء أو كل شيء صلاة صبح يقعدوا كذي ولا كيف أقول شيء عرفت يا باي أقول شيء سداد الماضي أفريد وجهكم وياي وكذي لي مو كذي لي أيه أصبر معك كل شيء أصبر معك كل شيء هاي تطلعت الشيء هاي قريبي عروتي ما كان بحثين هي ضاب بلا قرب صار أو بلا قدر ضايع بحين قبل يريد شيء أيا قرب صارتي كلا طبعا أرتي كذي كلا طبعا أرتي تصاق أنت صاق أمثالي قرب صارتي يا قبل يودي وطورين هاي مسكين هذا يا هيدا وقرص ما عليك كلا صاب بحثين بسم الله الرحمن الرحيم قد يقول عدانك وأقول قدي قده هيدا بنان ميل بنان أنا وفرفدنا صدق بدل يقول إن الدقراء كمينه يسوون كودا وعمي إن فريد با كمينها كودا وعمي دقارن اللي يرانا كودا وعمي قالتين كل كليتين شني السجاش النبا قالي شني السجاش النب أنت كدم بسينا وقالتين كتبي قال يشكي قلنا قضوه أنت سويت دافع ما كنت دري تكلم يدك حدود اصبر تدور تكتير بعيد وكشكي يكون نقول ما يروح وحسد دافع قبل يروح لما أنا وين محمد خير شيء اللي يدهدو ويضل لما أي كل فتن مقارنة كذي صوب حبيبي أنت لا بحبه قبل الداية صدق حبوط كمان أنت كل فتن أنا وكحي أقولي أكتر أنت شوقي قبل ناس إلما يربيه ستين نكي قبل قبل سيدو تشوفه وعرّي كيركسي وبابايبا دبعتها اللي يحبور كذا عضي waxay ka sheekeeyeen way ka sheekeeyeen laakiin gabadha way iloobeen baan malinaya waxay u geysteen dhexbur lagama sheekeen karin waa dhig yacab waan ka bax بسم الله الرحمن الرحيم أنا أضياشا dhagaxbuur baan ka mid ahay goorta dhawaytoolin kale hadlayay reer hebel lahaa madaxweynaha maqliya hoos u dhacbaan dhaaf waan lacayb dartii weeye waxaan sidaa u lahaa anu waxaan kollaba iloobayn ragganagii dhagaxbuur ka tegey ee maamulka ahaa ee wada suubanaan weligeedna wada shaqayn jiray iyo gardarrada lagu dilay soddon iyo googii shicibka ahaa ee lagu dilay cobolada waxaanu iloobi karna maaha dee raggii kolkaa maamulka ahaa ee watee qiran haya wax lagu cafiyo anuu garan mahayo mana suuroobayso maxaan ahay reer goldanno cagari baan ka imid aqallaan ku dhisay isagoo guddoomiyuu haddana uba ahaa anoo aqalkii dhisi buu ii yimid wuxuu igu yidhi aqalkan haddiisi waan gubi doonaa ha iska dhisin waka eegay hor taagan waa sidaa midka kale gawaadhidii ku gubnaa sanxadkulle iyo galaasha dhexdooda oo 8 gaari ay madaxweynaha iyo aad wada aragteen atlantiikii diri dhawa lahaa ee idaatada siin jiray shacabkii sanxadkulle iyo galaasha ninkii gubay weeye gawaadhida raqdoodiina waad aragtay madaxweyne waxaan u joogay dhalaabtii arda maxamuud salaan waxay tidhi war intaan wiilka yar dhaartiinaad aabbihii dishay in yar ii kaadi kuu kaadin mahaye wiilka dhig buu yidhi intuu dheeyey buu geedkii ceelasha goljanna ahaa geedkii weynaa ee bardaha yuu intuu gowracay oo diricii ka furay yuu sidaa gaashii balsaam u gagalay daad yidhi sharifadii ooyeysay cabdimadoobe cabdi ibraahim sidaa iyo si la egiyo wiilkeediiba
waxdada waxa ku haray laba wiil iyo gabadh isaga gowracay waliba uu gowracay bilaawo calaamahan oo dadku lahayn uu leeyahay hal eego oo shacabkana leeyahay bal caloosha adkaysi waxa hor yaala waxa weeye xasuuqi garba ka dhacay hor yaal kiiguna gada ka dhacay hor yaal imisa caruur ku dhimatay imisa hooyo lagu waayay imisa dad shacab lagu gumaaqay ila si la yaab ka badnaa waxa kamid ah laba nin wali xasuustayda kaba baxan waxaan xasuustayda ka baan laba nin oo dhalinyaro ah oo baabuur iyo ku ay shaqaystay soo iibsaday nin waxa la oran jiray cali bullaale korkiisa inuu u dhigay caruurtiisu ku korsanay isagana soo shaqaystay xoogiisa waxa jiray oo soo kacay jiray oo gaarigiisa la soo tagay oo sidoo xoogiisa ku shaqaystay waxa lagu gubay bulxan baa lagu gubay waxa lagu gubay bulxan baa lagu gubay idinkana waxa la idin sheegay waa la xorreynaya waa la dhisaya waa la idin sameynaya baabiinta dadkiina iyo shacabkiina waxaan u soo noqonayaa ilaahay baa mahad iskale maanta inoo fadhiisiyey waxaan u malaynayaa balorta dadweynuhu aan aamusno innaga arrinta laynoo hayaa innagaana haysana arrintee horta hadalka hala yareeyo buuqana hala yareeyo waxa weeye ta kale anugu haddii aan ka soo qaado wixii aan goobjoogu ahaa haddii ay noqoto meesha mulo la yidhaahdo meesha quraan la yidhaahdo meesha hore khaliife la yidhaahdo meesha araarta la yidhaahdo meesha la yidhaahdo biyo cadde meesha la yidhaahdo ma garanaysaa hore hawd intaas oo dhan dhibkii ka dhacay ee hoggaaminta iyo ciidanka bixinayay waa ninkaas iyo ninkaa kale labadaa nin weeyaan intaas dhibka ka dhacay waxaa lagu dilay hadda 500 oo qof oo rag iyo dumarba leh dhibkaa meeshaa ka yimid ilaa daambi ilaa digdigley ilaa ma garanaysaa daadhi ilaa camad leh ilaa meel aan wax lagu dilin intaas mayna jirin aniga adeerkay iyo 5 ilmaadeernaa adeerkay oo tukanaya oo maghrib joogo oo aabbahay walaalayiin oo maghribkii sidaa u tukanaya sidaa ayaa maghrib loola yimid meesha dhalaandhiga la yidhahdo wuxuu ku dhuftay 5 waxa weeye dhibku haddaba nin uuna ku soo dhicin oo xukuumadda kilalka sanada wax aan ma jiro waxa weeye nin horumarkii laga gooyey nin dadkeedii la laayay nin la baabiiyey gabdhaha baytariga lagu guray iyo gabdhaha basbaaska lagu shubay iyo wixii nagu dhacay waxaynu maanta sheegi kara maaha war wixiisa waxa weeye markay sidaa u dhacday maanta rag baa inoo kacay rag baa inoo halgamay rag baa inoo diriray rag baa waxay tacab waxna ku yimid maanta adiga iyo xukuumaddaada iyo xusbigaaga iyo dawladdaada ayaan ugu mahadnaqaynaa 100% ilaahayna mahadda ha ku siiyo ilaahayna ha idin liibaan dhammaantiin